كسر دواد يوتيوب channel كان قصولتش نقصها بير هذا هرا نقصها بيرين هذا لايك سبسكرايب تشارت أنت وتعبانين قصة ما أنت عن اليوم هذا واحد وإيه أما فيديو عن دوبنا وحكوس عبسية يعني كله يقانين نمرود وحكم ده عفرتي بقرة الدون كصام رأي الله بنا قال كهاي الله بنا المسلمين تها القرنين يا نبي الله عليه سليمان عليه السلام نمرود يعني أفراد أو صقر قالها يا صام رأي الدون نمرود نلوشي سمر كلا سكوا ضروح ولا استيل بقول صنو أفر بقول صنو أي كان عادي كذيرتي هلاقي سعيد يا أفرتي بقول صنو كوري سعيد تان نوح على النبي إبراهيم عليه السلام دارن وحلقي قرن جيسي وين هذا بني كان الله يقانو مجلس وح الله يقانا كنعان ابن كيش ابن سام ابن نوح عليه السلام قبل يسوي إنه نوح أنت سكت الصداع طبعا وين هذا بقى ديان هرا وصيص عنه ninka loo yaqaano namruud xilligiisii markii ugu horeysay aabii wuxuu ahaa hantiile tabcaday lacag badan wuxuu noqday hanti badan oo tabcaday marka laga imaado inankiisa kancaana ama namruud uu shaqaystay lacag wuxuu ku xayaali jiray lacagta wuxuu dhistay boqortooyo weyn wuxuu sameystay taaj dahab oo ah taajkii xilliga aan mid hore loo arag ahaa ilaa uu hantiyay oo isu meleeyayba ay ka gaadhay inuu noqdo boqortooyo uu sameesto adduunka oo dhan maamusho oo baqaadiisa uu ka maamulo kancaan ama namruud wuxuu ku noolaa Ciraaq walibana magaalada Baabil loo yaqaano dhamaanteed waa qabsaday ilaa iyo wixii ku xeeraba haddaba ninka loo yaqaano namruud maalin maalmaha kamida ee waxa isagoo ku dabaalanaya ama ku meedhanaya boqortooyadiisii waxa uu soo galay nin loo yaqaanay shakligiisa waxaan leeyahay hay'adiisa ama shakligiisa ama qaabkiisu uu ekaa nin hay'adiisa ama shakligiisu dhar adigu foolxun ama sita isagoo dabaalanaya ayuu wuxuu ugu soo gelayaa meeshii ku dabaalanaya mas'uuligiisa dadana namruud markuu arko naxaya markuu wuxuu onayaa war sideebad boqortooyada ku soo gashay sideebad walibana suuligi ama xamaamka ku soo gashay laakiin wuxuu ku oranayaa hadalka uu ka gaarsiinaya markii wuxuu ku oranayaa adigoo doonaya inaad adduunka oo dhan xukunto adigoo sheegtay ilaahnimo sideebay gamcaha kuugu dhaqayaan ama kuugu qubeynayaan dumar baa markaa la joogay oo u qubeynaya ninka loo yaqaano kancaan ama namruud dabeedna intuu isaguna isku naxo ayuu wuxuu sameynayaa markay gaadhkiisii ilaaladiisu imaadaan buu ku oranayaa ninkan qabta oo dila way qabanayaan way dilayaan dabeetana hadalkii baa ku soo noqonaya ahaa ma gabdhaha gamcaha ku meeray dadana wuxuu sir dumarkii ku maqlayay ku meeray kuina uu dilay sababta hadalkaani ka ku awgi way haddana markuu gurigiisii aaday qolkii hurdada aaday waxa uu qolkii hurdada ugu tagay ninkii markii uu dilay oo wali fadhiya uu yahay war meel lagu dilay sidoo ku soo noqotay waxa ku noqotay ama kaag laakiin se wuxuu ku yiri sidii caadigaad bulaad wuxuu ku yiri wadni waan ogahay inay doonayso inaad noqoto boqor adduunyadan ama adduunkan xukuma buqaadiisa magaalada Baabil oo ka xukuma kuma suuro galayso ama suuragal ma aha inaad ka xukunto ilaa aniga ay soo marto yaani wuxuu ku leeyahay aniga isoo mar dadana wuxuu qoonay adigu yaa tahay wuxuu ku oranayaa anigu waxaan ahay nuur baana la iga abuuray hadii aad doonayso markaa inaad hadafkaaga gaadhana ana awoodda ku siinaad ku gaadhiso waan soo raacdaa dabeedna waxay noqonaysaa sheekadii inuu ku dhaho isu ka sheeg dadana uu sacadeynay inuu ibliis yahay dadana hay'adiisii caadiga ah ama shakligii caadiga ah ama ibliis sidoo nooc u ahaa ila markan qof iska soo dhigay inaad igu aragto way buu ku leeyahay hadii doonayso inaad ma garanaysaa dadana qaabkiisu iska dhigaya wixii foosho xumaaye sidii ahaa timihii ka bacayaan adigu hay'adii ibliis lama sifay kare ayuu ugu soo baxay kabacdina markuu arko wuxuuna la gelayaa baayacad wuxuu ku oranayaa waa inaad aniga ii sujuudaa waa inaad aniga icaabudaa buu ku oranayaa oo ii sujuudo oo isu kay dulayso si aan ku siiyo quwada adduunka ku xukunto magacayguna ibliis markaa wuxuu noqonayaa namruud qofkii ugu horeeyay ee arlada ee naftiisa ka iibiya ama ruuxiisa ka iibiya ibliis imika seen ognahay waxa jirta mas'uuliyadda baasha loo yaqaano in shaydaanka naftaada u hiibiyo marka namruud xilliga wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay naftiisa u hiibiyay ibliis ee koonka adduunka soo mara يعني شكلها بلاوي
haddaba halkaa arinku markuu marayo sidaasay ku galeen heshiis isaguna sidaasuu kaga yeelay balankoodu saasuu ahaa wuxuu muddo socotaba wuxuu ku riyooday ninkii Namruud loo yaqaan habeen intuu seexday uu riyo ku yooday riyada uu ku riyooday waxay ahayd wuxuu ku riyooday qoraxdii oo joogta ayaa dayaxa intuu soo baxo ayaa ilayskii dayaxa qoraxda qarinaya uu yacni ka baawad weynaanaya dadana intuu saa u eegabo yaabaya dadana uu subaxii markuu kaco ayuu isugu yeedhaya kuhanadii ama faalaliyoodii ama dadkii riyooyinka fasiri jiray ee ku noolaa magaalada wuxuu ku oranayaa riyadaas dhacday ee fasira dabadna riyadii waxay ku soo gabagabeynayaan markay fasiraan ay oranayaan oo niyo waxa dhacaysa waxa dhalanaya sanadkan bay ku oranayaan boqortooyadaada qof ina yar baa dhalanaya boqortooyadaada u sabab noqonaya inuu ka dejiyo يعني سبب تبربر كبقرتويدا دبنا سجنا مركو أرين كام مقلو وحورنا واحد سنة كان نور واحد سنة كان على يا بكلي وح الله عليه وحي سنة أفكار على يا إنا يرى أما كبر هذا من هذا الدليل بورنا يا دبنا نبي إبراهيم عليه السلام بحلي قاعد على نيا مركا أنت كهاري سو بقرتويدا يكون مشاحي أفر بقولو سنة هاي وهير كسو قاري أفر بقولو سنة كبعد نبي إبراهيم بعد على نيا وسنة كاسة كبعد هو يدي ويقارن الساعة أو يدور ويدرس لكن وقرنيسا إلهي مركي إلهي نوع حفتية كبعدنا سنتكي ساسو كرافية كبعد النبي إبراهيم ووينانيا رسالة دي بالودي بيا وجورسانيا هوليس قصة النبي إبراهيم كشكان لكن نمرود بن كشكاننا بعد ذهب أنتي وكريتشري النبي إبراهيم بين كورامنا كبعد واحد نقرنيسا النبي إبراهيم مركي رسالة دي لودي بيو يتذكيبو إن ويمانا يا دعوة وكفدنا يا والله الله يا والله الله يا والله الله يا تذكر لكن شو رقم السنيان ninka Namruud la yaqaan la yiraahdo wuxuu sameyn jiray boqortooyadiisa wuxuu ku soo ururin jiray dhammaan waxa raashin magaalada ka baxa uu ururin jiray si gacanta ku hayay taasoo dara fagaarayash ayuu inta siin jiray suu koorin jiray meelaha aan aniga ahayn baad leedihiin halkaas ka gaadhay dabadna si wad saas socotaba maalin baa nabi Ibraahim oo maqlay warkiisa ayuu imanaya meeshii xilliga imanaya dadna cuntadii dadkii markuu qaybinayay uu kooranaya warkaaga waan maqlay Ibraahim inaad fasahaad dhulka ka wato ma ilaahay aan aniga ahayn baad leedahay uu ku oranay dabadna dood baa dhex maraysa quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay oo ku oranayo rabbigay ama ilaahay nabi Ibraahim baa oranaya waxbuu nooleeyaa waxna waa dilaa ee adigu wax ma dilaysaa waxna ma nooleynaysaa soo ku oranay ha ana wixii waa umid waxbaan dilaa waxbaan nooleeyaa waxna waan dilaa dabadna wuxuu ku oranayaa wuxuu laba nin oo dil ugu xukunaa oo raggii uu haystay uu midna sii deynay midna dilaya ninkii Namruud loo yaqaan soo oranay waaniga dilay waaniga nooli dadana nabi Ibraahim wuxuu qoonay waa ninka dishay noole suu ku adkaanaysa wax suuragal oo sameyn kara ma aha dadana ile fidnadiisa iyo nabi Ibraahim soo ka yar ayuu hadalka u bedelay oo ku oranaya ka aamusay dadana suu ku oranaya ilaaha wax kale ma sameeyaa Namruud baa ku oranay yani wax kale la kaalay wuxuu ku oranay ilaahay wuxuu ka keenaa qoraxda min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib buu ku oranaya dabadna wuxuu ku oranaya ujeediisii buu deekeeni karo waa aamusaya dabadna nabi Ibraahim adigu maalinkaas oo aan waxna ku sameyn kareen oo dadkii saamoo soo wada eegayaan oo dadkii waqtigoodii ma maqlayaan wuxuu siri niyow hadaad dishay imika qof ka awood weyn baa soo baxay uu soo ornay adigu ibliis buu uga dacwoonayaa sheekada hadaan soo koobo ibliis buu uga dacwoonayaa oo ornay ninkaas soo baxay oo dadkii diintii raacinayay bal niyow si igadha dadana ibliisna wuxuu oranayaa deele waxa uu awoodi karo maaha ilaahay baa subhanahu wa ta'ala nabi Ibraahim soo diray wuxuu oranayaa xirfad yaxbu wadaayo dadka ugu maraataynaya nabi Ibraahim hadalka dhamaadkiisii nabi Ibraahim waa ka asnaamta qoorta ka wada jaraya iyagoo magaalada ka maqan dadana wuxuu sameynayaa markuu soo noqdo nabi Ibraahim alayhi salaam way weydiinayaan dadkiisu way qabanayaan Namruud baa loo geeyay Namruudna chance buu ku helayaa hog buu qodaya weyn ay dhowr cisho godayaan hoggaas dabatana ku ridaya nabi Ibraahim alayhi salaatu wasalaam kuma dhimanay ilaahay baa ka badbaadinaya arinku sagoo sidaas ayaa waxa jirta muddo badan la sii jiray oo nabi Ibraahim xil yeeli kar waa ibliis uga dacwooday oo Namruudna ibliis ka furtay macalo ay ismaageen oo ku awoodii aad balan qaadimeeday ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dhowr malag uu soo diray kala dambeeya malakul jibril baa imanay malakala oo imanay intaas oo dhan waxay ku oranayaan boqortooyadaadana hayso ilaahayna subhanahu wa ta'ala caabudo kada sina akoonka ku wada boqortooyadaadana hayso waa ka diidaya dabatana waxay u qabanayaan ku oranayaan saddex cisho gudahood ku diyaar garow adigaaga iyo ciidankaaga waxaad hanti haysataba waan ku imaanaynaa dadana saguna diyaar garow uu galaya wuxuu soo oranayaa dad ciidan kula dagaalamaya jiraya dadana wuxuu hubahay
dabaadna markuu ciidan buu urursanaya ciidda iyo camaarka ka badan hantidiisii uu ku kharash garanaya waxyaabo badan buu sameynaya saddexdii cisho markuu diyaar garoobo سوى صلى أيضا باقي ما إلهي بقى أيضا كوسا طريقه إلهي وشيء النبي جبريل حلي ما يكون جبريل نبي إبراهيم أي كور رمين باقي ما رأيه يا إلهي سبحانه وتعالى وحوصل درا يا قرآن حين محمد جدي خنيع عيد ذاك بدن قوم كي أما إذا عيد ذاك بدنا ونمرسود يعني لما أنت خنيع على سكر أمانه سيج كريم ويان سيج إلهي سبحانه وتعالى هل من أو خنيع أبا كجلس السنكة كبعدين مسكحة فرسانسا دبنا هل كاسي مسكحة سكبدو قينسا خل بيكو سمينسا سغر إلهي وسيدة يوانولي وسينولي انت أساسا نولا انت أساسا نولا أفر بخور أوصنا أو ضمب أيون أدونغ كوسي نولا نمرود سغو كان عادس دكتا حاليا مسكحة كجرتو كان عادس هير دلوني بو كغاري عيدن كيسا أما دد كيسا وكورين جري قف كستو سو غليا إن كب مدح أو كلا دعان واد ما قشمان فريق كب إنه مدح كلا دعان إنه تصالحان دب حتى دب هيرك جارين إن مدح سي مكان سمح وعالي يرنقضه ومركب مدح كب يمدح على كلا دعو شكل جيسي هي ديسا أما حنون كي هي بقى كير قعي تبعنا دلني ما يتوقع قبه كبته لو يستاج أي مدح على كلا دعي مدرير كبعدي وعد انتي سي لولا دعي وأنا آخر الساقي خاتم الساقي ninka على كل وعي ملاكتي ويمن جرتي أربعة هذا حيصو الله باب بالأدون كأردن كحكومة كربر وياي كوفي هاي سنة إلهنا سبحانه وتعالى وصلناه وش إلهي عبد وادي لكن قدام بي إلهي وأهل هاي شكرا لك أنت كنت شكتا أدي الله رنقص بير سام كل شيء ونقص بير السلام عليكم